عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقاتي قدامنا نسيت وابن اوفيشال فضل الجنة كاتيها كوصبتها سبسكرايب سارس يكسو كرر المقالة حقا مقال كانوا حقا وشكين انها فكرتك نعسي وقت صومالي كبلا بكرتيت يعني مركا كلها فكرتك نعسي وحكو كسو دعايو قراش لعاق ما أودي كرا ومحي سيسيكو سورتك اللي كرا يعني qofku dhalinyarada Soomaaliyeed marka aragtid waxyaabaha maskaxiisa ka dhax guuxayo iyo sida asaga uu dhijabsan yahay iyo xaaladda dalka uu ku jiro wuxuu leeyahay inuu lacagta ka keenta waxyaabaha qaar waxa jiro oo aad u fudud oo basiit ah laakiin qofka asaga laga rabaa sida uu dhaqaajin lahaa maskaxdan Ilaahay wuxuu ku siiyay inaad دلالسيت يعني شيلتان أو كوسمسيت كرتيد هذا يدبر هذا كأجن أو حكو قبستيت إلى أن يعني الشرف وحكوية لي أنا هذا أو قبستيت حوج هذا أمالتيت بروق هذا أمالتيت أيوة الشرف كوية لمسكح هذا يعني قنط هذا أنا حكوسو صارتيت أيوة إلهي دي يعني وحانو إذا الحبان وإذا الكوسي الحمد لله على كل حال إله أوما تعلنا وحولبا وحبها والبنين مر والباء أتكنعش أكو فكرته وحد وقتها وكفض الطهي إن أتكنعش أكو فكروس وهي مركا أتكنعش أكو فكرتين وحن باهيسا هان كاسو حكاربا كليا أكشن كنا أكو واخد ولو حتى العقلان حتى أكو دقاق وإن أدخن جلسيت سيدا أكو دخن جلسيت يعني ضدك لإنك قتيت أصلا وحن إنا سميسيت فكر كان وفكر معقول وآت وفوت وآت صوماليا قولدو إذيل آت كهر قلي كرتو وكنعسيقا يعني كار ووشن وحلو يقان دقيتانك قباردة أوكي سيدو كلا دقيتانك موتوينك بجاجيدا حمولدا انتاسو إذيل يعني وحباهايهين إن أسبوعي qofkii aan dhaqan mootadaas hal mar inuu dhaqado maalintii jimcihi maalintii khamiistii yani waxay u baahan yihiin in ooliyada iska bedelaan in mootadii dhaqaan gaariga inuu dhaqo ma fahanti oo qof walba u baahan yahay soo adiga marka wax laga rabaa war aniga intii ka faa'iideysan karaa ganacsiga sida ku hirgeli karta ganacsigan uu iska fuujiyaa sida ku hirgeli karta anaa ku qalshaga waxaad dhamaystiraysaa shuruucda degmadaada dowladda hoose marka shatiga ganacsiga soo qaadatid waxa u baahan tahay inaad raadisid goob yar oo banaan barxad yar oo banaan barxadaas yar lamyeeri kureeji tubo soo gasho waxaan samahan tubo markaas soo gashatid waxa haystaa markaas meesha aad ku shaqeyn lahayd waa haysataa waxa ka maqan markaan resource oo kala inaa heshid dadkii ku shaqeyn lahaa iyo wixii lagu shaqeyn lahaa inaa heshid labo yani dad waxaa raadinaysaa dhalinyaro yaryar oo hadda soo kabcaya oo hankooda weyn yahay oo raba inay shaqaystaan ilaahay subxaana wa tacaala dadka isku mid ma ka dhigin adeer ilaahay wuxuu kugu maneeyey inaad ganacsigaas yar afuratid oo qof aad shaqaaleysiisid yani waa martabad ilaahay uu ku siiyey qofkaas inuu adiga kuu shaqeeyna asagana ilaahade martabadaas yani siiyey adigana qofkaas wax ma dheerid asagana wax ma ku dheero laakiin waxaa wax ku joogtiin waxaa waay inaad dan aad wada fulisaan asagana uu kaa faa'iidaysto adigana asaga aad ka faa'iidaysatid utur shaqaalahaaga qofkaa shaqaaleysiinaysid waa inaad u turtaa number 1 qofkan marka adiga ku shaqeynayo maalintii markuu mootadaas dhaqo gaarigaas dhaqo xaqiisa joornatigiisa waa inaadan war aadan gelin xitaa maalintaas isku xanaaqsantiin waa isku dhaxdin joornatigiisa waa inaadan war gelinin inuu qofkan saaka waxa uu soo baxay waa inaad ku shaqeeya caaw markuu hoynaan waa inuu helaa dhiirigelin oo birsuuxi ku soo kaco inuu shaqada asigoo raba uu soo aada sidoo kale baahidiisan uu ku fuliyo
markaa helno dad macquul oo anaga noo shaqeeya oo servicekaas noo qabta waxaa u baahannahay wixii aan ku shaqeyn lahayn sida tubooyinkii aan ku dhaqi lahayn carfisooyinka mootada iyo gawaarida ku dhaqi lahayn hooverkii aan ku shaqeyn lahayn oo gaariga boorka ugu qaadi lahayn sidoo kale shaabooyinkii marooyinkii iyo yani suufka aan ugu baahana inaan mootooyinka ku dhaqno intaasoo idil iyo oolyadii bedelka aan ugu baahana qofka macaamilka inaan dee yani gaari haddii markaas wato inaan ugu bedelno haddii markaas gaarigiisa meel kale oolyada uga bedelinayna dee anaga colesna saaramaan waajibkeena ugu weyn waxaa waaye inaan gaarigiisa gudaha iyo banaanka aan nadiifino mootadiis qofkaan aan dhalaalino kor iyo hoos so qalabyadan waa qalabyo yani lacagtooda aad u yartahay waxa ugu badan aan dhihi karo waa generator macnaha motor gaas ku shaqeynaya inaa heshid halkii yani haddii mar aa awoodid korontada يعني كورنتا هذا أودت بشيل كورنتا كوش خير ما يجرنا هذا أود واقع لكن الجنريتر ك يعني حكوف يعني مثل غاز كعوليبا يعني غاز وكوش خير هيا ما فهمت سمعان سمركا كحكوش هلايا إن بيها هانتا كوجرا إنه كوفوزي والتبوين يعني يرجع يجرا بريشر واحد راهي أو بريشر كبيها يعني جرينا هيا ayagoo awoodna u yeelayo brasharka biyihiini aanan kaa khasaarinayn yani waxaan dhihi karnaa waa fursad sahlan oo aad ku shaqaysan karto kasoo qaad maalintii waxaan dhaqay celcelis 10 mooto haddii mootadii aan aniga ku dhaqo $2 mootadii haddii aan maalintii ku dhaqato $2 oo aan 10 mooto aan dhaqo maalintii waa $20 waxaan samahan $20 celcelis waay rinji aniga kuwa hadda ku sheegay 20 mooto ka badan inaad dhaqid waa dhici kartaa 10 mooto ka badan inaad dhaqid waa dhici kartaa 10 mooto ka yar inaad dhaqid waa dhici kartaa ilaahay maalintaas carabkaaga wuxuu kuu siiyo alxamdulilah $2 marka calaamoodta ku dhaqid oo 10 mootona maalintii aad dhaqdid bishii $600 waa dakhli aadan shalay haysanin maanta ku soo galaya waxaan samahan dakhli aadan shalay haysanin maanta ku soo galaya okay sidee marka aniga aan u guuleysan karaa oo ganacsi sii jira ku noqon karaa ganacsigani wuxuu ku sii jiri karaa mar allaal marka adiga aad joogtayso oo aadan marnaba aadan ka quusan oo aadan dhihin lacag yaruu soo saaraya $600 lacag miya of course $600 lacag waa $600 adiga maadan haysan okay $600 adiga maadan haysan laakiin maxaa lagaga baahan yahay sabr maalin kasii dambeysa macaamiil ayaa yeelanaysaa kii shalay adeegiisa si fiican aad u nadiifisay mootada u dhalaalisay u qurxisay biyuhu ku soo laabanaya adeegaadi markii uu nadiif yahay adiga laga rabaa sidii shaqaalahaaga aad ugu dhigi lahayd kuwa macaamiishooda qanciya mar walbana in adeeg shaqada ku dhex jirtid muhiim waxay u tahay in ganacsigaaga uu yani horumar sameeyo joogtayn sameey xitaa tii aadan awoodin inaa markaas adiga imaan karin waxaa u baahan tahay mar waliba ay hirgelin maareyn korjoog isla xisaabtan iyo inaad ku dadaashid tayada yani adiga serviceka aad bixinaysid waxaan rajeynayaa muuqaalkan inaa wax badan aad ka faa'iiday waxaan diyaar u ahay inaan kaa caabiyo wax walba aad uga baahan tahay sidii ganacsigan aad ku bilaabi lahayd janaalkan waxaa ugu talagalay inaan kusoo gudbiyo fikradaha ganacsiga bedelinta ganacsiga iyo wax allaal wixii la halmaala ganacsiga kusoo biir telegram groupkayga
igala soo xiriir Telegramka si aad yani igala soo xiriirtid waxa alla wixii aad ugu baahan tahay ganacsiga online-ka si aad kaaga jawaabo baahidaada oo aad u noqotid yani qof hankiisa yani hirgeliya. waxaan diyaar u ahay inaan markaas ku caawiyo. fadlan muuqaalka haddii uu ku cajibiyo like saar si ay ku soo gaaraan muuqaalada xiga. insha Allah mahadsanid. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.